السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالية إنك داركتان وحلي هذا الضاحي خلفان تليه هوري أمانك مقالة دبي ayaa ku tilmaamay ku sheegay bartiisa Twitter-ka in dadka uu diiday Donald Trump inay soo galaan Mareykanka ay yihiin shucuub dhimatay iyo shucuub dambaysa jamaacado wax soo saar aan lahayn. xamaasadiisu waxay la sii tagtay inuu yiraahdo in dadka loo diiday Mareykanka inay galaan waxa waajib in loo diiday xitaa inay Soomaaliya galaan. Soomaaliya wuxuu yiri Soomaaliga xadkiisu waxa weeyaan burama tabartiisu waxay tahay bir Muqdisho dad dambeeya buu yiri wadan hormaray hadii ku qulqulaan wadankaas waxay u horseedayaan biiriin uu dambeeyo xitaa haduu yahay Mareykanka. Daahir Khalfan ayaa dadka maaragtay loo diiday ay kamid tahay Soomaalida inay Mareykanka galaan dhulka ku jiiday oo waxay yihiin tusay marka Soomaaliya sidee u aragtaan Daahir Khalfan wuxuu ku hadlay ودي dhinac laga fiirino waxaad moodaa in arinkaas arin saxan inuu yahay waayo wuxuu yiri xataa dadka wadankooda burburiyay buu yiri wadan kale in ma aragtay ku qaxaan waa shay aan loo baahnayn marka Soomaaliya iyo wadankiina dhista gacmahana isqabsada qabiilkan wadankii burburiyayna faraha laga qaado xataa wuxuu ku daray Daahir Khalfan siyaad baraaya ugu dambeysay buu yiri sharaf Soomaaliya